Hamza, wallahi aad iyo aad u mahadsantahay walaal. Thank you so much for doing this. Waa waxyaalaha oo magaranaysaa ee dhalinyarada Soomaalida ay aad iyo aad ugu baahan yihiin waaye. Markastana markaad live soo geshid waxaan isku dayaa haddii aanan busy ahayn inaan at least xataa 10-15 minutes inaan ku dhegeysto, you know, Allah يخليك. because Thank you so much. It's you're my pleasure. very, very, yeah, you're very inspirational, mashallah, and we really appreciate what you're doing. Thank you Yeah, aad so iyo aad much. just hal su'aal hayay oo aan rabay inaan magaranaysaa wax yar so I can pick your brains. You can help me with it. Waxa waaye I hope in dadka dhegeysani doona insha Allah ka faa'iideysanayaan. Okay. And waxa waaye how can we build meaningful networks in business? aad baa mahadsantahay. waxa yani marka la doonayo in la dhiso network la dhiso welina valuable ah waxa la qaadi karaa tallaabooyin kala duwan aad bay u badan laakiin afar baa kusoo koobaya. Sax. shayga u mudan ee u horeeya ama tallaabada ugu horeysa waxa weeye waa marka hore inuu qofku isagu uu valueskiisa dhiso yacni qofku haddii aan isagu value lahayn uu dadka kale yacni waxa weeyaan uu magaranaysaa ku dari karayo inta badan way adkaataa inuu cid la xidhiiri karayo oo network wanaagsan uu heli karayo because of qof kasta oo doonaya inuu kobco wuxuu doonaya cid at least wax ka faa'iidi karayo waxa yacni side wanaagsan marka number one waa inuu qofku isagu isdhisaa pointka labaad wuxuu noqonayaa in uu qofku ku dadaalo uu network u dhisayo inuu ku saleeyo waxa weeyaan careerkiisa yacni uu ku jiro amba yacni industryga ku jiro marka businesska yacni laga hadlayo oo uu dad raadsado dhanka businesska ah tani waxay markaas siin doontaa fursad isaga laftigiisi waxna uu ku darsan karayo uu provide garan karayo iyaga laftigoodii information iyo yacni wixii looga baahdo iyaga laftigoodana ay siin karayaan marka waa fursad ay iskula jaan qaadi karayaan oo ay dadku haddii kale industry duwan yihiin aad bay inta badan u adkaataa marka taa inuu raadsado qodobka saddexaad waxa weeyaan qofku inuu ku dadaalo internetka inuu kaga faa'iidaysto dhanka networkingka yacnihi sidii ahaan waxaynu aragnaa boqolaal qof oo inaan gaari karin oo inaan isku meel joogin oo inaan yacni waxa weeyaan ay adkaan lahayd inaynu isgaadhno inaynu gaari karno iminka dadkaas oo kale qofku si uu ugu wanaagsanaado yacni waxa weeyaan si uu u helo yacni dadka wanaagsan oo kale waa inuu internetka ka xushaa asxaabta muhiimka ah oo uu kaga darsadaa dantani waxay siin kartaa fursad uu ku gaari karayo dadyo waa adkaan lahayd inuu gaaro qodobka afraad u dambeeya kusoo koobiya waxa weeyaan waa inuu qofku waxay communicationkiisu wanaagsanaataa because of communication is the key word la yidhahdo markay nolosha noqoto waa communicationku waa shay ka saacidi karaya yacni qofka inuu si wanaagsan dadka ula macaamilo isna loola macaamili karayo marka haddii communicationka noqoto tii writtenka ahayd iyo haddii noqoto tii verbalka ahayd iyo haddii noqoto tii kale non verbalka ahayd qofku waa inuu iska dhisaa si guud yacni aqoonta communicationka as long as communicationkaagu wanaagsan yahay waxaad fursad u haystaa inaad dad yacnihii wanaagsan aad la xidhiiri karto oo networkkaagu wanaagsanaan karo dadyo kale network waxay u haystaan aragtida ah inay cid walba la barto amba dad fara badan la barto dad fara badan maaha cid kastana maaha waxa weeyaan waa quality people inaad barato yacni dad waxa weeyaan tayo leh dad wanaagsan dadooda jaan qaadi karaysa cause of cid walba yacni istiraada baro halis bay yacni ku gelin kartaa oo dadyow waxa weeyaan dee amba balwadaan wanaagsan ku bari karaya amba somehow ku dhibaateyn karaya amba somehow yacni waxa weeyaan noloshaada yacni valuegeedu hoos ku dhimi karaya ayaad la xidhiiri kartaa laakiin muhiimad waxa weeyaan waa in aad u noqdaa yacnihi selective networking inuu noqdo oo dooran karto adiga ciddaad doonaysid inaad la xidhiidho waxaa yara ku darayaa point kale oo bonus aan ku darayaayo ah inaad kalsoonidaadu wanaagsanaato kalsoonidu waa shay aad muhiim u ah waana ta la yidhahdo kalsoonidu waa awoodda kashaada haddaad ku beerto kurbada baqashada daweysa kaa reebtana daciifsanaanta inaad ka sarrayso qeyrka awoodda ku siisa weyaan yani qofku as long as uu yahay qof isku kalsoon oo confidencekiisu uu aad u sarreeyo wuxuu heli karayaa wuxuu la xidhiiri karaya yani dad iyagu la xidhiiri kara networking kusameynaya cause networking kama soo hadho inaad ku dhici karto oo deer yeeran karto aad dadka kula hadli karto aad dadka kula xidhiiri karto marka qofka haddaan kalsooni lahayn way adkaanaysaa inuu si fiican u hadli karayo way adkaanaysaa inuu dadka yani wax weeyaan tusi karayo valuegiisa way adkaanaysaa inuu dadka la xidhiiri karayo way adkaanaysaa inuu dadka la jaan qaadi karayo marka afartaa qodob iyo qodobka shanaad ayaan kusoo koobaya yacnihi isu guud yani laakiin way jiri karaa qodobo kaloo fara badan Hamza, aad iyo aad u mahadsantahay brother. Thank you so much. That was very valuable. Mahadsantahay.